Waxa uu ka mid yahay hibooyinka Eebbe nagu manaystay ee tiro beelay. Waxa uu ka mid yahay nimcooyinka ay bulshadeennu dayacday. Waxa uu ka mid yahay arrimaha la iska weydiin doono maalinta qiyaamo. Waxaan maanta muuqaalkan ku soo qaadan doonaa waqtiga. Magaceyguna waa Cabbaas Mustaf. Ka faa'iidayso waqtigaaga. Waxaa la yiri waqtiga waa nolosha, iyadoo laga cabirayo qiimihiisa aan wax loo dhiga aan jirin. Waxaa la yiri waqtiga waa lacag, iyadoo laga cabirayo qiimaha uu leeyahay. Waxaa la yiri waqtiga waa sida seefta oo kale, haddaadan goonin asiga ayaa ku goonaya, iyadoo laga cabirayo socodkiisa iyo orodka joogsiga aan lahayn uu ku jiro. Alla subxaanahu wa tacaala ayaa marar badan ku dhaartay waqtiga. Taasi waxay kuu bidhaaminaysaa qiimaha waqtiga uu leeyahay. Waqtiga maanta ku dhaafay biri kuma soo laabanayo, mana awoodid inaad dib u soo ceshatid. Waqtiga mar walba hore ayuu u socdaa, marka isku day inaad ka faa'iidaysato. Waayo waxaad arki doontaa maalin maalmaha ka mid ah in waqti kugu filan aadan haysanin. Waxaa ku soo mari doono waqti aad dhihi doontid, maxaan waqtigeyga uga faa'iidaysan waayay? Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku dardaarmay 5 arrimood ka faa'iidayso inta aysan ka faa'iidaysanin. 5taas arrimood waxaa ka mid ah dhalinyarnimadaada intaadan duqoobin iyo firaaqadaada inta aadan mashquulin. Taasna waxay kuu cadeynaysaa in waqtiga uu yahay shay muhiim ah ama wax muhiim ah. Isku day inaad ka faa'iidaysato waqtigaaga. Waqtiga waa shay qaali ah, taasna waxaa ogaan doontaa maalin maalmaha ka mid ah. Diinteena aad ayay ugu nuuxnuuxsatay duubista qiimaha waqtiga, laakiin nasiib darro badanaa inta jeer ayaad marto wado oo aad aragto dhalinyaro badan fadhiya gagaarada iyo kabadaha. Badanaa inta jeer ayaad aragto dhalinyaro saacado ku luminaya maqaayadaha iyo shaashadaha TV-yada badanaa. Sanadku waa 4 xilli, 12 bilood, 48 isbuuc, 365 maalmood. Haddaan si kale u dhaho, 10kii sano ee la soo dhaafay waxaa naga tegay 3560 maalmood oo ka mid ah cumrigeena. Ma is weydiisay maxaa nagu soo kordhay iyo maxaan ku soo kordhinay adduunka? Maxaan faa'iidnay iyo maxaan khasaarnay? Inaan isbarbar dhigno muuqaalkeena shalay iyo keena maanta wax micno ah soo ma kordhinayso. Ma ogtahay daawade 15 daqiiqo isbiirsaday ee soo bixayso sanadkii 11 maalmood, 22 cisho oo ku dhow bilna ay tahay 30 daqiiqo oo maalintii ah. Waqtiga aan ka hadlayno waa ilbiriqsiyo isbiirsaday oo noqda daqiiqado, daqiiqado noqda saacado, saacado noqda sanado. Adigoo is ogeyn ayaa khasaarisay filan daawashadiisa 8 sano oo aad jaamacad dhakhtarnimo ku dhammayn lahayd. Saad hadhow ka qoomeeynaysaa oo oranaysaa haddii sidaan samayn lahaa sidaan ayaa noqon lahaa. 10 sano kadib haddii aadan gaarin meeshii aad u socotay ama lagaa rabay inaad gaarto, weli fursad ayaad haysataa daawade. Dib u bilow hanashada iyo maamulada nafsadaada. Qorshee in 10 sano kadib maanta aad noqotay xidig ama tusaale kumanaan dhalinyaro ah ay ku daydaan. Maskaxdaada ku hay xigmad oranaysa maalintaada yeenan kugu dhaafin faa'iido la'aan, maalkaagana ha dhigin wax qabad la'aan. Waayo cimrigu waa uu ka gaaban yahay inuu dhammaado faa'iido la'aan, maalkuna waa uu ka yar yahay in la dhigo wax qabad la'aan.